ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed ayaa maanta ka gudoomiyay dowladda Imaaraadka deeq raashin ah taas oo loogu talagalay dad ay saameysay abaaro ka jira qaybo ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya haba ugu darnaadaan gobolada Gedo, Bay, Boqol, Hiiraan, Shabeellooyinka iyo waliba qaybo ka mid ah gobolka Galgaduud. munaasabada deeqdan lagu wareejinayo xukuumadda Soomaaliya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka kala socday labada gole ee xukuumadda. agaasimaha mashruuca gargaarka ee Imaaraadka ee Soomaaliya Saciid Cabdalla oo ka hadlay munaasabada ayaa ka warbixiyay deeqdani ay ugu talagaleen dadka Soomaalida ah ee ku dhibaataysan gobollo ka mid ah dalka Soomaaliya oo ay saameysay biyo la'aan iyo waliba cunno yari. ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cabdulle Sheekh Axmed Maxamed oo isaguna goobta ka hadlay ayaa dowladda Imaaraadka uga mahad celiyay deeqdan ay soo gaarsiiyeen dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay abaaraha. waxaa dhawaan xukuumaddu go'aansatay in guddi heer wasiir ay ka howlgalaan diyaargarowga iyo ka jawaabidda xaaladaha cunno yaraanta dalka si ay u suurowday in degdeg loo farageliyo oo degdeg wax looga qabto wixii xaalado bini'aadanimo oo soo kordha. guddigaas shaqadiisa ayuu bilaabay waana ku faraxsannahay in maantayto aan halkaa ku aragno qaybihii ugu horreeyey gargaar ah oo tegi doona goobaha abaaraha ka jiraan ama cunno yarada waan u mahad celinayaa dowladda Imaaraadka waxaan rajaynayaa in dalal badan oo kale ay hay'ado kale dadka ka qayb galaan. xukuumad ahaan waxaan raadiyaasha ka dhagaysateen in wixii awood annagu aan u lahayn inaan ku tabarucnay. deeqdani dowladda Imaaraadku ay guddoonsiisay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa noqonaysa tii ugu horeysay oo la soo gaarsiiyo tan iyo markii xukuumaddu ay ku dhawaaqday baaq ay uga codsanaysay beesha caalamku in la gargaaro ummadda Soomaaliyeed ee ay saameeyeen abaaruhu. xasan kaaf Cabdiraxmaan, Puntland TV, Muqdisho.